markii ay wadamada Shiinaha iyo Algeria u dabaaldegayeen bilowgii 60 sano oo ka soo wareegtay xiriirkoodii diblomaasiyadeed. Faransiisku ma ahayn mid dabaaldega, taasina waxay ahayd markii labaad ay weysay kursigeedii saaxiibtinimo ee albaabada dhaqaale Afrika. Sawirkan waa 500 diinaar lacagta Algeria waxaa si cad uga muuqanaya dayax-gacmeedka Al-Qamsad 1 oo lagu farsameeyay Shiinaha, waxaana laga ganay dhulka wadankaasi China sanadkii 2017. Algeeriyiintu iyo Shiineysku waxa ay gaareen dhinaca hawada waxaana laga tagay dhinaca dhulka. Waa kan safiirka China ee dalka Algeria oo dhahaya, maanta waxaan beernay geed yar, waxaan ku kalsoonahay in geedkaasi yar midhihiisa la guran doono. Algeria iyo Shiinaha waxa ay beereen midhaha barnaamij nuclear oo nabadeed sanadkii 1988. Faransiiska iyo Mareykanka waxa ay doonayeen in ay joojiyaan arrintaasi, ma aysan joojin Shiinaha mana dilin rajadii Algeria. Shiinaha waxa uu xusuusan yahay sida ay taageero ay uga heshay Algeria sidii ay ugu laaban lahayd qaramada midoobay kursiga joogtada ahna ay kaga heshay golaha ammaanka oo ay Taiwan ay kala wareegtay sanadkii 1971. Algeeriyaanku waxa ay xusuusan yihiin garab istaagii Shiinaha xilligii kacdoonkii ee isticmaalkii Faransiiska iyo wixii ka dambeeyay madax banaanidoodii. hadda Algeria waxa ay dhisatay masjidka saddexaad ee adduunka ugu weyn iyagoo adeegsanaya khibradda Shiinaha oo lagu dhisay dekedaha, garoomada iyo wadooyinka waaweyn. waxa ay dowlad military ku sameeyaan badda si wadajir ah. waxa ay galaan heshiisyo hub ah oo malaayiin dollar ku kacaya. intaas oo dhan Shiinaha ayaa sameynaya. Algeria waa indhaha Shiinaha. haddaba sidee Beijing uga gudbaysa Afrika marka loo eego quwadaha kale ee waaweyn? marka aad fiiriso masaafada labada dal ee isku jiraan, waxaad arki doontaa dhul weyn oo u dhaxeeya labada dal. ku tijaabi telefoonkaada gaariga, ma heli doontid qiyaas sax ah. ku tijaabi habka socdaalka diyaaradda, waxay kugu qaadan doontaa muddo hal maalin ah oo dhammaystiran oo 17 saacaad u soconayso. Shiinaha aad ayay uga fog yihiin, balse jaaliyadda ugu weyn ee ajnabi ee Algeria ku nool waa jaaliyadda Shiinaha, waana wadanka ugu weyn ee maalgashi ku sameysay Algeria, waana kuwii ugu horeeyay ee badeecada keena, waana Shiinaysa. iyadoo laga istaagayo amaba la suurtagelinayo macluumaadka aad ku heli karto masaafada ama telefoonka, hadda qaado macluumaadkan soo socda. xiriirka labada dawladood waa mid istiraatiiji ah, weliba aad u wanaagsan oo quruxsan, sida uu shaaca ka qaaday madaxweynaha Algeria Cabdimajid Tebboune. waana xiriir qadiimi ah oo heer sare oo quruxsan gaarsiisan. dawladdii ugu horeysay ee garab nagu siisay xureynta isticmaalka dagaalkiisa waxay ahayd Shiinaha. dhaqaatiirtii ugu horeysay ee na soo garab istaagtay 1962 waxay ahaayeen Shiinaysa. Shiinaha waxa uu noqday dawladdii ugu horeysay aan Carab ahayn ee aqoonsata jabhaddii xureynta Algeria oo hub iyo lacagba ku siin jirtay in ay madax banaani qaataan xilligii kontomeeyadii qarnigii tagay. Shiineysku waxa ay sheegeen in ay abaal weyn ay u hayaan dawladda wadankaasi Algeria iyo shacabkeedii. waxa ay u direen 3400 oo dhaqaatiir wixii ka dambeeyay madax banaanida marka ay qaateen. kuwaas waxa ay soo xambaareen 1.3 milyan oo jiilka cusub ee Algeria. Shiinaha aad ayuu u danayn jiray in uu taageero wadamada soo koraya si uu uga helo taageero caalami ah ama codkoodii dagaalka ka dhanka ahaa inay Taiwan ay meesha ay ka saaraan. taasna waxa ay sameysay in Algeria ay u fududeyso in Shiinaha qaramada midoobay uu ku biiro, taa oo u gol xaartay in Shiinaha uu kursigiisii joogtada ah uu ka helo golaha ammaanka ee caalamiga. sanadkii 1988 waxa ay Shiinaha kala shaqeysay Algeria sameynta nuclear, waxaana ay iska indhatirtay cadaadiskii uga imaanayay Mareykanka iyo Faransiiska. sanadkii 2020 Shiinaha oo kalinimo dareemayay kadib cudurkii corona oo ka dilaacay dalkaasi, Algeria waxa ay u dirtay xirmooyin taageero caafimaad ah. markii ay dhibkaasi ay ka baxday Shiinuhu, waxa uu Shiinaha u istaagay in koox caafimaad iyo gargaar daawooyin u soo diro wadanka Algeria. si wadajir ayaan uga adkaan doonaa cudurkan. haddaba labada dawladood waxa ka dhaxeeya xusuusyo qurxoon, laakiin xiriirkooda kaliya ma ahan mid xusuus ee waa mid saaxiibtinimo oo aad uga sii fog midda dhaqaale iyo midda istiraatiijiyad, taa oo cabsi gelisay caalamkii hore ee qadiimiga ahaa iyo dunidani cusub. haddaba maxay Algeria muhiim ay ugu tahay Shiina?
marka ugu horeysay waa inaad eegtaa arrinta meesha ku jirta waana sida ay isugu dhow yihiin labada dal mowqifyada siyaasadeed ee dhacdooyinka gobolka iyo midda caalamka la xiriirta. Tusaale ahaan markii Algeria xubin ay ka ahayd golaha ammaanka intii u dhaxaysay 2004 ilaa iyo 2005 Shiinaha ayaa si wanaagsan uga jawaabay mashaariic Carbeed. Tusaale kale miyaad doonaysaa labada dawladood waxa ay diideen howlgalkii NATO ee lagu riday nidaamkii Gaddafi. waxa ay mar kale ay diideen fargalantii shisheeye ee dibadda uga imaanaysay Syria. Sidoo kale waxa ay diideen dagaalkii Yemen lagu qaaday. Siyaasadda guud waa muhiim diidmada iyo fargalinta shisheeye marka loo eego, balse dhaqaalaha ayaa wax waliba ka muhiimsan. Kulankii dhaqaalaha ama mid fog ganacsiga Shiinaha ee Algeria way dhaqaaqday 2 sano kadib markii Shiinaha uu u dhaqaaqay in uu isfurfuro, waxaana ahayd 1980kii. waxay sidoo kale ay heshay dhiirigelin sanad kadib markii Shiinaha uu ku biiray 2002 hay'adda dhaqaalaha adduunka. Algeria waxa ay fududeysay in shirkadaha Shiinaha ay soo galaan suuqyadeedii. Iskaashiga ugu weyn waxa uu dhex maray shirkadda China ee Sonyberg iyo shirkadda Sonatrach ee xukuumaddu ay leedahay ee dalka Algeria si loo horumariyo soo saarka shidaalka ee Zariatin. 15 sano oo ka soo wareegtay xilligaasi, Algeria waxa ay la kulantay wax aysan filayn, wax soo saarkeeduna uu noqday 60%. Shiinaha waxa uu noqday dalka maalgashiga ugu badan ee Algeria ka sameeya, waxaana ay gaartay dalka France. Waxa la soo gaaray sanadkii 2014 oo dawladaha ay gaareen in ay ku tartamaan istiraatiijiyadda waddankaasi Algeria. Haddaba 2014 taariikhdaasi wixii hore wax ka duwan miyaa dhacay? hal sano ka hor waxaa yimid madaxweyne cusub oo magaciisu uu yahay Xi Jinping oo huwan riyo dhaqaale oo aad u weyn oo uu doonayay in uu ku xaqiijiyo Algeria. Arrintaasi oo Algeria ay u baahnayd Shiinaha wax weyn uga dhigan kula soo biiritaanka arrimaha dhaqaalaha. maxay tahay haddaba sababta? waayo waa meesha albaabka u ah wadamada waqooyiga Afrika. waa qaaradda kor u qaaday Algeria ganacsiga Afrika marka loo eego China, waxaana ay labalaabtay 40% wax soo saarkeedii, waxaana kordhay maalgashiga 130 intii u dhaxaysay 2011-2016. ganacsigaasi ballaaran waxa uu u baahan yahay meel la marsiiyo, waxaana albaab u ahaa Algeria. June 2019 waxay si toos ah ugu biirtay heshiisyada horumarineed. waxa uu ahaa akhbaar wanaagsan, balse Shiinuhu oo kuma noqon lama filaan maadaama ay Algeria ay ku tirinaysay dawlad xulafo ah iyadoo kala fogaanshiyaha juqraafiyadda ay jirto. Shiinaha waa waddanka labaad ee sida weyn u isticmaala shidaalka adduunka, waxaana maalgashi uu ku samaynayaa dhinacyada tamarta. halkan waa meesha ay iska galaan labada dal ee Algeria iyo Shiinaha. shidaalka Algeria laga soo saaray iyo maalgashiga Shiinaha. Algeria waa meel muhiim u ah oo jaar la ah xeebaha Yurub, waana meesha uu tartanka ku bilaabanayo. laakiin maxaa loogu celcelinayaa mar waliba Shiinaha muhiimadda uu siinayo Algeria? Algeriaanku waxa ay ku celceliyaan in Shiinaha uu yahay saaxiibkoodii runta ah, waxaana ay xusuusan yihiin xilligii madoobaa ee sanadihii 1992 ilaa 2002 oo dhammaan diblomaasiyiintii reer galbeedku ay isaga baxeen waddankaasi. Shiinaha waxa uu xoojiyay xiriirkii diblomaasiyadeed iyo midda dhaqaale iyo siyaasadeed ee Algeria. haddaba waxaa jirta taariikh xoojinaysa joogitaanka Shiinaha ee Algeria iyo taariikh aan la ilaawi karin oo Algeria ay u gashay Shiinaha iyadoo uu gaaray ilaa 6 qarni. xukuumadda shuuciga Shiinaha waa midda ugu adag, si weyn u dabagasha shacabkeedii, balse aragtida dibadda marka aad wax ka fiiriso waxa ku muuqanaya wax aan ku tilmaami karno hadal dheer oo haddana gaaban.